السلام عليكم داوديال من والبعد عالم كان قد ونيسان كسو دوادا برنامج كترتن أقوانيت كبش رمضان سكولات كرباني جروبس اوف سكوليس oo si toos ah ugu daawaneysaan telefishinka 5 Somali TV xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka oo maalintii labaad galay ayaa shalayta waxa uu tartanka ku saabsanaa maadooyinka xisaabta chemistry-ga sidoo kale English-ka iyadoo maanta ay ardayda ku tartami doonaan maadooyinka siirada iyo sidoo kale biology-ga barnaamijka ayaa inta uu socdo waxa uu ka koobnaan doonaa su'aalo ardayda la weydiin doono isla markaana waxa barnaamijka igala qayb qaadan doona oo su'aalaha ardayda weydiin doona macallimiinta kala ah ustaad Maxamed Daawud Cali oo siirada loo qaabilsan iyo sidoo kale Master Chifen Kiboy oo isagana sidoo kale biology-ga weydiin doona ardayda noqod wanaagsan daawadayaal waxaan guda galeynaa barnaamijkeena ama tartankeena balse intaan aan macalinka ku wareejinin waxaan rabaa inaan wax yar aan dul maro shuruudaha barnaamijka su'aalaha la isweydiin doona siirada waxay ka koobnaan doontaa 6 su'aalood su'aashiiba waxay qaadan doontaa 2 daqiiqo ee ardayda haystaan inay kaga jawaabaan iyo sidoo kale biology-ga oo 8 su'aalood ka kooban isagana su'aashiiba 2 daqiiqo ay ardayda haystaan insha Allah ardayda waxa ka codsanaa inay waqtiga ilaaliyaan nidaamkana ay fiiriyaan midda kale ardayga oo jawaabta bixinaya waxa looga baahan yahay inuu intuusan jawaabta bixinin ka hor uu magaciisa ku bilaabay sidoo kale iskoolka uu ka socdo siirada ayaa ku bilaabi doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan soo dhaweynayaa ustaad Maxamed Daawud Cali oo ardayda weydiin doona su'aalaadka ku saabsan siirada iyo aan soo dhawo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وسود وين هي دمان أرضا يو إذا عدا يو مؤسسين تي دمان dadka meesha fadhiyo inta ka bacdi siirada su'aalaheedu sida loo sheegay way waa 6 su'aalood waxaan u kala qaadaynaa group A iyo group B ardada ka socoto al-Ashrafiyya high school waa group A ardada kalena group B waaye marka su'aaluhu waa su'aal iska sahlan waxaan maleynayaa ardada iyo wixii sida loo diyaarinayo mawcidkaasna hore naga soo hadalnay markaan ku sii dheeraan su'aasha koobaad waxaan weydiinaynaa al-Ashrafiyya high school sida tan bayna leedahay waxaad sheegtaan xaakimu misra fi caadi rasuulillah waxaad sheegtaan ninkii xukumayay masar wadanka la yiraahdo xilligii nabiga calayhi salaatu wassalaam oo uu qoray nabiga risaalada waxaa la iska rabaa magaciisa waxaad sheegtaan al-Ashrafiyya اذكر حاكم مصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمك حكمها هي مصر حلي النبي ardayda Ashrafiyya waxay haysataan 2 daqiiqo ka faa'iideysta waqtigiina insha Allah jawaabtana kaga fadhinaa
sharafiya haddii aa ka jawaabtaan su-aasha jawaabteeda. هاني أحمد الشرفية جالس قيصرة. jawaabta haddii sax tahay macalinka ugu fadhinaa. jawaabtii su-aashii ahayd waxaad sheegtaa magaca ninkii xukumahayay masar fi cahdi rasuulillah ama waa xilligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. su-aasha jawaabtay ka bixiyeen al-ashrafiya high school waa khalad. su-aasha haddii si ka-faa-ideysiga ay rabbaani u tagto, ka-faa-ideysiga wax waqtiga ma lahan haddii aad ka faa-ideysan kartaan. wiilasha waqtiga idinka dhicin haddii aad jawaabta bixin kartaan. السلام عليكم مجيء عبد القادر عثمان وكسعد رباني هاي جاوبت حوايا عبد الله. haddii ay sax tahay macalinkaa ka sugeynaa. jawaabtii usoo wareegtay rabbaani high school ee ahayd xaakimkii masar xukumahayay sheeg xilligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. jawaabta ay ka bixiyeen waa khalad. way ka faa-iideysan waayeen rabbaani high school iyagana su-aashaasi. haddii aa u gudubno group b oo ah rabbaani, haddii su-aasha macalin aa weydiisid. su-aasha labaad aan weydiinayna group b. su-aasha koowaad ee group b. su-aasha koowaad sax. su-aasha koowaad ee group b aan weydiinayno rabbaani high school sida tan wey. udkur isman aakhar liqaswati khandaq istacmalhu lqur'aan. waxaad sheegtaa magac kale oo ay leedahay qaswada la yihahdo alkhandaq oo qur-aankana uu ku idlaaqay ama uu ku magacaabay. 2 daqiiqa haysataan rabbaani high school ka faa-ideysta daqiiqadiin insha allah. korna u hadlaysa insha allah. magacayga waa cabdiraxmaan kor u hadal. magacayga waa cabdiraxmaan oo ka socda rabbaani high school. jawaabta waxaa waaye qaswat axzaab. haddii su-aashaas jawaabteeda sax tahay macalinka ayaa ka sugi doonaa insha allah. su-aasha koowaad aan weydiinay group A rabbaani high school sidaasan ahayd udkur isman aakhar liqaswati khandaq istacmalahu lqur'aan. jawaabta ay ka bixiyeen waa sax waana qaswat alaxzaab. su-aasha koowaad ee la weydiiyey rabbaani high school waa ay saxeen. waxaan usoo wareegan doonaa su-aasha labaad ee la weydiin doonaa ashraafiya galis high school. waxaan ku soco. su-aasha labaad aan weydiinayna al-ashrafiya high school ama group A waa sida tan: man zaada fi aadaani subxi ama fi aadaani salaati subxi alsalaatu khayru min annawm fawaafaqahu rasuulu sal alla alay slam. yaa ku ziyaadiyey aadaanka salaada subax alsalaatu khayru min annawm oo nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu ku waafaqay. 2 daqiiqa haysataan rabbaani aan iraahda ee ashraafiya galis ka faa-ideysta waqtigiin insha allah.
magacaygu waa naciimo xasan waxaana ka socdaa ashrafiya girls jawaabtu waa bilaal bin rabaax ashrafiya girls haddii ay mid sax tahay macalinka ayaa ka sugi doonaa jawaabta su-aasha aan weydiinay al-ashrafiya high school oo ahayd waxaad sheegtaa qofka ku ziyaadiyey salaada subax aadaankeeda asalaatu khayru min annowm nabigana uu ku waafaqay jawaabta ay ka bixiyeen waa sax jawaabta ay bixiyeen ashrafiya waa mid sax ah haddii aan u gudubno su-aasha labaad ee aan weydiin doono rabani high school si soco macna su-aasha labaad oo group B ay leeyihiin ama rabani high school sida tan ayay u dhacaysaa rabani high school su-aashiinu waxaa weeye waxaad sheegtaa qofka la yidhaahdo dunuurayn man dunuurayn walimaadaa sumiya magacaas dunuurayn la yidhaahdo yaa iska leh walimaadaa sumiya maxaana loogu magacaabay oo loogu bixiyey dunuurayn 2 daqiiqo ayaa haysataan aad kaga jawaabi kartaan su-aashaas waxaa ka socdaa rabani high school jawaabtu waa cuthmaan bin cafaan waxa loogu bixiyeyna waxaa waaye labada gabdhood nabigu aroosay su-aashaas jawaabta ay ka bixiyeen rabani haddii ay tahay mid sax ah macalinka ayaa ka sugi doonaa insha allah su-aasha ahayd yaa la yidhaahdaa dunuurayn maxaana loogu bixiyey ee aan weydiinay rabani high school ama gurubi jawaabta ay ka bixiyeen waa mid ah sax su-aashii labaad ee la weydiiyey rabani waa ay saxeen waxaan u wareegi doonaa group A oo ah ashrafiya girls iyo su-aashooda saddexaad su-aasha saddexaad oon weydiinayno group B ahna su-aasha ugu dambeysa oo la weydiinayo group A baan u socda cafwan ahna su-aasha ugu dambeysa oo group A la weydiinayo ama al-ashrafiya high school waa sida tan fi ay ghazwatin nazalat fiha salaatu al-khawf غزوة أما دولانكي أي كسو دكتي أمريكا اللي أمرية صلاة الخوف والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة البري في أي غزوة نزلت فيها صلاة الخوف غزوة أما دولانكي أي كسو دكتي صلاة الخوف jawaabta 2 daqiiqo ayaa haysataan ka faa'iideysta waqtigiina insha allah بسم الله مقعيق ونعيمة وحكس على أشرفية girls high school جوابت سؤال شاسنا غزوة بني مصطلق jawaabta ay bixiyeen hadday tahay mid sax ah macalinka ayaa ka sugi doonaa jawaabta ay bixiyeen al-ashrafiya high school oo ahayd waxaad sheegtaa salaatul khawfka qaswada ay kusoo degtay waa mid ah khata ama saxiix ma ahan waa mid qalad ah haddii si ka faa'iideysi aan ugu wareejino jawaabta su-aashaasi rabani high school ka faa'iideysiga wax waqti ama lahan please haddii aad ka jawaabi kartaan بسم الله
magacayga axmed cali xaashi jawaabta waa qaswat uxud. haddii ka faa'iidaysteen haddii kale macalinka ayaa ka sugi doonaa jawaabta. jawaabtii ayaa kasoo tagtay al-ashrafiya high school oo si ka faa'iidaysa ugu soo wareegtay rabbani high school. jawaabta ay ka bixiyeen su-aashaas waa mid khalad ah. kamaysa faa'iidaysanin rabbani high school. haddii su-aasha ugu dambeysa ee saddexaad ee la weydiin doono rabbani high school oo group B aan u gudubno macalin waad weydiin kartaa. rabbani high school ama group B sidaas ayay u dhacaysaa. rabbani high school في أي غزوة وقعت فيها حادثة الإفك. غزوة دي أما الدولانكي أي دحد علي حادثة الإفك أرنتي بين أبو قاهي. وقت لما دقيقة أنا يستان تيجي جوابها سؤال بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأنس عبد محمد فرم ربان هاي سكول. جوابت رحاوي غزوة بني مصطلق. هذه جوابتي بحين مت صحت هاي معلك كسوق دونا جوابته. سؤال شو قدم بيسيون ويديني رباني هاي سكول أما جروبي هو هايد واحد شفتها غزوة أي دحد على حادثة الإفك. جوابتي كبد حيان وامد صحة. سؤال شي صدحات اللي ويدي رباني هاي سكول أو جروبي أها jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. saasna waxaa noogu soo idlaaday maadada siirada oo ka koobnaa 6 su'aalood oo 3 la weydiiyey group A 3na la weydiiyey group B. waxaan geli doonaa insha Allah maadada biology-ga u gudbi doonaa oo iyadana ka kooban 8 su'aalood oo min 4 la weydiin doona. Thank you.
intaas kusoo gabagabeynay maadada siirada. Waxaan u gudbi doonaa maadada labaad ee tartanka maanta oo ah maadada biology-ga oo ka koobnaan doonta 8 su'aalood oo min 4 la kala weydiin doono labada group. waxaan soo dhaweynayaa macalinka Master Stephen Kiboy soo ardayda u weydiiyo su'aalaha biology-ga. Welcome teacher. Thank you. I take this opportunity to welcome you back for this particular competition. At Rabani Group of Schools We Care. Rabani is a pride of Kenya. Welcome. We've questions in Form 3 topics. That's ecology, 4 questions, and a classification, 4 questions. Each question is worth 1 mark. So, section A, Group A, we've Rabani High, and on Group B, we have Ashrafia Girls. If you're not able to answer the question, we'll be giving to the other group to try the same question. Now, we're going to alternate. The first question, I'll start on ecology. Ecology, the first question, I'll give it to Rabani. The second question, number 2, to Ashrafia Girls. Number 3, Rabani. Then number 4. We're going to alternate all the questions in the 2 topics. Now, let me start the first question, number 1. For Rabani High School, name the causative agent of typhoid. Name the causative agent of typhoid. Assalamu alaikum. My name is Abdelkader Osman. I'm from Rabani High, and the answer is Salmonella typhi. Yeah, that's correct. su-aasha koowaad ee Rabani High School la weydiiyey ee maadada biology-ga jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Group B oo tookadan Ashrafia Girls ayaa su-aasha koowaad ee maadada biology-ga la weydiin doonaa. Question number 2, Ashrafia Girls. Name a method that can be used. Name a method that could be used to estimate the population size of fish in a fish pond. 2 daqiiqo ayaad haysataan. magacayga waa Naciima Xasan waxaana ka socdaa Ashrafia Girls. jawaabta waxa waaye capture method. Yeah, that's right. jawaabta ay ka bixiyeen Ashrafia Girls iyagana waa mid sax ah. waxaan u gudbi doonaa su-aasha labaad ee Rabani High School la weydiin doono oo group A ah. Question number 3, Rabani High. Name the process through which free atmospheric nitrogen is converted into nitrates. jawaabta su-aashaasi 2 daqiiqo ayaad haysataan. jawaabta magacaaga ku bilow korna u hada. magacaygu Maryam Aadam waaye. jawaabtu waxa waaye nitrification. Sorry, repeat. Nitrification. Yeah, the answer is wrong. The correct answer should be nitrogen. No problem.
nitrogen fixation. Okay. su-aashaasi waa gubatay macalinkaa ka jawaabay. No problem, waa gubatay. Rabani su-aasha way ka jawaabi waayeen. Ashraafiya ayaa u heli lahaa si ka faa'iideysiya, laakiin macalinka ayay kasoo fakatay jawaabta su-aashaasi. I will give them another question, if you can allow, please. Okay. No, you can't. Not them. You can give them. Yeah. We move on to the next question. Okay, then the next question will be this group. Yeah, this group. Yeah. Now, the next question, number 4, Ashrafia girls. State the trophic level that green plants occupy in an ecosystem. Ashrafia girls waxay isticmaalaan daqiiqad. magacaygu waxaa waay Hani Ahmed from Ashrafia Girls. Answer is producers. Yeah, that's correct. The answer is producers. jawaabta ay ka bixiyeen Ashrafia Girls waa mid sax ah. su-aasha saddexaad group group A la weydiin doono ee Rabani High School ayaa u gudbi doonaa. Yeah, the next question, Rabani High. Name the phylum whose members possess a notochord. laba daqiiqo ayaad haysataan ka faa'iidaysta waqtigiina. From Rabbani High School, the answer is phylum Chordata. Your correct answer? jawaabta ay bixiyeen Rabbani High School waa mid sax ah. waxaan u gudbi doonaa su-aasha lixaad isla markaasna ah su-aasha saddexaad ee la weydiin doono group B oo ah Ashrafia Girls. Question number 2, Ashrafia Girls. 3. Number 3. Yeah. Name the main method of reproduction among bacteria. magacayga maxaa waay Salma Maxamed from Ashrafia Girls. The answer is binary fission. That's answer right. jawaabta ay ka bixiyeen su-aashaasi waa mid sax ah.
su-aasha ugu dambeysa maadada biologiga isla markaasna ah su-aasha afraad ee la weydiin doono Rabani High School ayaan u gudbi doonaa. Rabani High, state any major characteristic that is unique to members of the class Mammalia. Assalamu alaikum. My name is Abdulqadir from Ashrafia High School and the answer is mammary glands. I know I mean Rabani High and the answer is mammary glands. The answer is right. jawaabta ay ka bixiyeen su-aashaasi Rabani High School waa mid sax ah. Waxaan u gudbi doonaa su-aasha ugu dambeysa isla markaasna ah su-aasha afraad ee la weydiin doona Ashrafia Girls oo group B noogu jiro. Welcome to you. Yeah, the last question, Ashrafia Girls, name one division in the Kingdom Plantae. magacayga waa Naima from Ashrafia and the answer is Division Pteridophyta. Yeah, the answer is right because they are only asking of any one because there are three major divisions. The answer is right. jawaabta ay ka bixiyeen su-aashaasi waa mid sax ah. That is the last question. Yeah, that's the last question. Go
daawadayaal intaas ayay aan kusoo gabagabaynay maadada biology-ga balse group A oo ahaa Rabbani High School oo su-aal ay garan waayeen si ka faa'iideysa ugu soo wareegtay Ashrafia intiisa Ashrafia aysan ka jawaabin macalinka afkiisa ka soo baxday guddigana waxay isku afgarteen in sida xaq uu yahay Ashrafia la weydiiyo hal su-aal oo dheeraad ah oo ka faa'iideysa haddii ay ka jawaabaanna dhibcahooda ay helayaan haddii aysan ka jawaabinna aasan wax ka faa'iideysa aysan Rabbani ugu gudbi doonin mar kale macalinka soo dhaweyn doona asaga su-aasha weydiin doona Ashrafia su-aashii ka faa'iideysigeeda idinka qasaartay ayaa si toosan ili weydiin doonaa. Yeah, one more question for Ashrafia girls. Yeah, name the causative agent of amoebic dysentery. laba daqiiqo haysataan ka faa'iideysta waqtigan. su-aashii ka faa'iideysiga ahayd ee la weydiiyey Ashrafia girls iyagana ma aynan garanin ama fursadooda kama aysan faa'iideysanin intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa tartankii maanta oo dhexmaray Ashrafia Girls High School iyo sidoo kale Rabbani shalayto haddaan dib ugu laabano dhibcihii ay kala heleen maadooyinka xisaabta chemistry iyo Englishka oo ay ku wada tartameen Braja ayuu kusoo dhamaaday kulankii shalay oo min 35 dhibcood ayay la hoydeen maanta su-aalaha la weydiiyey waxay ahaayeen saddex su-aalood oo aan idhaahdee maadada siirada ah Ashrafia Girls hal su-aal oo keliya ayay garteen oo 2 dhibcood ayay ka heleen siirada halka Rabbani High School ay saddexdii su-aalood la weydiiyey ay ka wada jawaabeen oo ay 6 dhibcood qaateen dhanka kale maadada biology-ga ayaa min 4 su-aalood laga weydiiyey Ashrafia Girls 4 su-aaloodba ay ka wada jawaabeen oo 4 dhibcood ayay ka heleen biology-ga halka Rabbani ay hal su-aal garan waayeen oo ay 3 dhibcood qaateen markaan isku dardarno Rabbani maanta waxa ay heleen aan idhaahdee 9 dhibcood labada maadaba siirada iyo biology-ga markii loogu daro 35 dhibcood shalay waxay noqonaysaa 44 dhibcood inay heleen maanta iyo shalay sidoo kale Ashrafia ayaa maanta waxay qaateen 4 aan idhaahdee 6 dhibcood 6 dhibcood markii loogu daro 35 dhibcood oo ay shalay haysteen waxay isku noqonaysaa 41 dhibcood tartankana maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa oo Ashrafia Girls High School 41 dhibcood ay total leeyihiin 6 maado shalay iyo maanta lagu tartamay halka Rabbani High School ay 44 dhibcood leeyihiin 6 maado ee shalay iyo maanta lagu tartamay barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaad kala socoteen telefishinka 5 Somali TV anigoo cali sheekh ibraahim ayaa xiriirka ahaa ama idila socodsiinayay intaan barnaamijkan midka xiga ku kulmi doono waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
Thank you.